kulan wacan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wacyi weerarka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen dalka Iran halkee ayuu ku dhamaan doonaa barnaamijkaas ayaynu maanta faaqidaada iyo falanqeynta dhinaca fikirka aynu ku eegayno oo inoogu martiyahay sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir mar walbana falanqeeya arrimaha bariga dhexe mufakkir islaami ah sidoo kalena arrimaha siyaasadda iyo waliba istiraatiijiyadda aad ugu xeel dheer oo aanu ka wareysano halkaan aan ku casuno mar walba oo marti inoogu yahay ayaanu ku qaada dhigi doonaa si kastaba aan dib u milicsano ee marka laga soo bilaabo burburkii Gaza iyo layntii hogaamiyayaashii Xisbullah iyo Hamas Netanyahu sida aad la socotaanba waxa uu ku baaqay oo uu sheegay in uu jiradaha u siibay muqaawamadii iyo mixwarkii ka hor imaanaysay sidaas oo kale haddana waxa uu sheegay inuu u tabaabushaynayo mixwar kale oo dadka sunniga ah iyo muqaawamadooda laftirkooda uu ku waajihi doono oo u diyaar garoobayo sidii ayagana uu xididada ugu siibi lahaa balse marka hore aan soo dhaweeyo sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ku soo dhawo barnaamijka waa jazakallahu khair saaxiibkay ustaad maartay dulyadayn andawahay sheekhana waxaanu u qaybinaynaa cutubyo maanta bal cutubka koobaad aanu ku bilawnay waxaanu ku fiirinaynaa sababta Iran loo weeraray maxay tahay su'aasha koobaad oo aan raba inaan ka keenana waxay tahay sababta markaynu eegayno weerarka Iran ma Mareykanka waday mase Israa'iil ayaa waday ayaa dad badan isweydiinayaan alxamdulillah sallallahu ala rasuulillah wa ba'd aad baad ma santahay sheekh exceptional maxaa yeelay bariga dhexe oo ah wadnihii dunida muslimka u gubanaya jasiiradii carabta oo ah mahadul islaam baa ololeysa Iran oo ah dowlad shiica oo muslima iyo iyaduna ololeysa marka mandiqada dhan waxa ka socota wax la dhahdo maartay rimaal mutaharrika carada dhaqaaqaysa waa luqada istiraatiijiga waxa loo bixiyay rimaal mutaharrika amba waxaan oranaynaa zilzaal siyaasi shadiid gariir siyaasadeed oo adag amba se waxaad dhihi kartaa inay bariga dhexe ka socoto tashakul siyaasi jadiid waxaa la abuurayaa siyaasad cusub khariido cusub karti cusub iyo abuurmaysa dagaalkani maaha dagaal caadi ah ogaan doona maanta insha Allah haddaan u soo noqdo su'aashaada dagaalka Mareykan baa wada mise Israa'iil baa wada saddex shay bay khubarada istiraatiijigu ay isku haystaan waxay mid leeyihiin ma dagaal Israa'iil ay hogaaminayso Mareykanna ku raacsan yahay baa qolo kale waxa leeyahay ma dagaal Mareykan dhigay oo Israa'iilna adeegsanaya qolo saddexaadna waxay leeyihiin Mareykanna kuma jiro Israa'iilna kuma jirtee laba qolo ku jirto oo ah laba midig oo ayna dadka Israa'iiliyiintuna ogoleyn in badani dagaalkani soo u socdo Mareykankana in badani ma ogolo dagaalkani soo socdee waxa is helay laba qolo oo afduubatay Mareykan iyo Israa'iil baa oo xaq jira dhinaca midig oo xaq jiro dhinaca midig ee fog waliba saddexda baa la isku hayaa maartay dagaalka yaa wada aniga haddaan soo ururiyo si aan waqtiga uga faa'iideysano waxa weeyaan dagaalka waxa wada boqolkiiba 80 wax ku dhow dowladda Israa'iil dowladda Israa'iil see u wada markaas su'aashu waa taa weeyaan waxa weeyaan waxaad ogtahay dagaalku intuuna dhicin hal usbuuc ka hor ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu wuxuu booqasho ku tagay Mareykanka Florida ugu tagay madaxweyne oo Trump madaxweyne Trump wuxuu ku qancinayay saddex arrimood oo istiraatiiji ah wuxuu ku qancinayay qalqu baabil diblomaasiya albaabka xiwaarka ee diblomaasiga in la xidho labo in lagu bedelo dagaalkaas oo waliba ah dagaal adag oo Iran loo dhameeyo in lagu bedelo arrinta saddexaad wuxuu ku qanciyay in laga sheekaysto ma bacda Iran oo Iran laga soo qaado wax socotay
kadib sheekadaas madaxweyne Trump sida imika la qorayo waa lagu qarxay waxaana la dejiyey dagaalkii sii noreeyahadkiisii laakiin diblomaasiyaddii way sii socotay saa arki doona ra-iisul wasaare Netanyahu wuxuu ku soo laabmay Israa'iil Falastiin buu ku soo laabmay wuxuu ka jeediyey khudbadda wuxuu yidhi waxaa gabagabaysmaysa Iiraan iyo dadkii xukumaysay mandiqaduna uma adkaysan karayso jiritaanka Iiraan iyadoo halkaa la socdo iyuu hadlay safiirka Maraykanka u fadhiya Israa'iil ninkaas safiirka ana waa midigteeda wuxuu yidhi waa in dowladda Israa'iil ay burburiso 3 shay oo istiraatiiji ah number 1 Gaza waa in la ilaawo waxa Gaza dhacay ma jirto waxa la daanta galbeed lifa la dhacay ma jirto waa Samara Yahuuda Samara dhacay waa dhul ay leeyihiin Israa'iiliyiintu inta waa in laga sameeyo dowladda Israa'iil lana iloobo waxa la dhacay Palestine arintaas wuxuu waa arin laga maarmaana arinta labaad wuxuu yidhi waa in la burburiyo fikrad wal oo u socota in dowlad Falastiin la sameeyo gebigeedba saddex wuxuu yidhi suurtagal waa inay noqon karto in la asaaso Israa'iil tii weyneed hadday noqoto juqraafi ahaan iyo hadday noqoto fikrad ahaan labadaba juqraafi ahaan waxay ka mid tahay dhul way qabsan kartaa min an-Niil ila al-Furaat Israa'iil cadaan buu yidhi wuxuu kaluu raaciyey waa safiira dowladda Maraykanka u fadhiya Israa'iil keligiisa matalayo wuxuu kaluu intaa raaciyey inay Israa'iil hadday qabsan weydana waa inay ahaato ad-dawlatu al-ula fi sharq al-awsat bariga dhexe dowladda koowaad waa inay ka tahay markuu Netanyahu ka soo laamay Maraykanka Florida okay Palm Beach arrintaasi markaas waxay ku tusaysaa wax weeyaan dagaalka iyo wada dagaalka waa dagaal Israa'iil iyo Maraykanka iyo midigta fog an markaas dadku way kala qaadayeen anu waan isku daray laakiin waxa hogaaminaysa Israa'iil Maraykanna Israa'iil buu daba socdaa maaha Maraykan Israa'iil maaha saddex qolooyinka midigta ana waxay u arkayaan fursad waliba dadka rumaysan dagaalka Harmigdon waa buur ku taala Falastiin oo ay misayiin dagaalka yawm al-qiyaamah ka dhacayo oo ku soo dhaadhici doono Nabi Ciise alayhi salaam kuwa saas rumaysani waxay u arkayaan fursad dadka dad yar maaha waa 80 malyan oo Maraykan waa 15 malyan oo Ingiriis si uu Nabi Ciise u soo degay in loo sii nadiifiyo agaarkaas waa ina loo sii nadiifiyo dadkiisii la diyaariyo ka dawla hawiya marka dagaalkaasina waa dagaal u baahan maalin inaan ka sheekeyno maxay ka dhigantay fikradda dagaalka Harmigdon dadku inay bartaan Harmigdon dagaalkaasi muxuu ka dhigan yahay fi qiraa'ati at-tawratiyya wal injiliyya marka ku aqrino kutubta nusuusta injiilka tawraat in ku aqrino nusuusta ay kaniisadaha laga aqriyo haddaan aqrino waxaan fahmi karnaa siraacan socda oo ka soo baxay siraaci dhulka awlta luxu al-ard siraac diiniya iyo ideology isku bedelay marka samadu ku xiran yahay imika samadu ku xiran yahay marka dagaalkani haddaan orno yaa wada Israa'iil wada Maraykan wadaba socda waxaana labadaba riixaya midigta labada midig ee Israa'iil fog dantooda iyo midigta Maraykanka waa kaas gartay Sheekh Cabdiraxmaan sida aad la socotaba Donald Trump markii uu madaxweynenimada u tartamayay ururka mega iyo dadkan uu saameynta ku sameeyay wuxuu ku qanciyay America First iyo America Great Again taasoo uu ka waday peace iyo nabad baan ku soo dabaalaya dalka Maraykanka dagaal gali mayno marka danta Maraykanka first ka dhigayna marka waxa laga dhaxqiraa Israa'iil iyo wadamada dibadda iyo waxaas oo dhan in meel iska saari doono maxaa ku dhacay America First Again horta Sheekh maartay Maxamuudow wax weyn baa dhacay wax weyn baana ka horeeyay oo in aad loo akhriyo u baahan waxa loo yaqaano
maanta waxaan u baahannahay alqira'a alwaaciya anakoo wacyi leh barnaamijkeenu waa barnaamijkii wacyi waa inaan wax akhrino anakoo wacyi leh soo jeedna waxayna u baahan tahay alqira'a alhaadi'a inaan anakoo degan akhrino muta'aniya waxayna kaloo u baahan tahay alqira'a almutagayira inaan isbediladana degdeg ula soconno laakiin waxaan u baahannahay intaa inka ka badan alqira'a alistraatiijiya xataa narbida bayna hadi alqira'aat si istraatiiji inaan u akhrino si aan iskugu xidhi karno akhrisyadaha kala duwan dadka waxaad arkaysaa qaar degdegaya qaar waxaad arkaysaa raacaya wax soo dhacaa qaar maaragtay iska daawanaya oon madaaficda dhacayo oo iraan baa garaacday qatar alla saaka kuwait saleeto alla halkan indhaha bes carab way dhimatay carab waa la laayay sabab shakeyna qaarna waxay leeyihiin goormay ku dhici doontaa jabuuti iyo barbara iyo suuxiinta goormay soo tuuri doonaan iyo waasaan dhegeysanayna waan waxay ka fikirayaan ma turkiya ku xigi doonaba marka qiraa'adan waa soo marka aniga waxay ila tahay dowladda Mareykanka madaxweyne ninka waxaa dhahdaa Trump markii la dooranayay doorashada waxaa horta keenay inuu isagu soo baxo oo uu dhaco ay dhacdo gabadhii maxaa oranayay la tartamaysay gabadhii dimuqraadka ahayd Kamala Harris ay dhacdo waxa keenay waxay ahayd Gaza arrintaasi hay ka soo baxday shirkii ugu dambeeyay xisbiga dimuqraadka oo la qarinayay sheekadii hoose xisbiga dhex socotay la akhrinayay gabagabadii waxaa lagu qoray taqriirkii raportii waxaa lagu qoray safxadda meesha ugu dambeysa waxaa lagu qoray waxaa ka adkaaday xisbiga dimuqraadka Gaza riday xisbiga dimuqraadka Trump markaa maxaa soo saartay Gaza soo saartay okay waxay ka dhigan tahay jiil Z-ka generationka Z-ka loo yaqaan 25 30 wixii ka yari aqligiisu maaha aqli sahyuuniya ma ana ahina aqli midig ah mana ahina aqli been loo sheegi karo waa aqliga la dhahdo aqliga internetka walidaalika baa tiktoki iyo dhulkii ciyaalku la soconayeen hal xiraa la yiri la iibsanaya maaska ama hal xiraa ama hal iibsado qaybtii shiiruhu maamulay meelaha qaar waa kala iibsaday Mareykan xiisaa si loo controli karo waxa meesha maraya waxaa la ogaaday generationkani inuu generation ka baxsan yahay CNN-ta inuu dhageysto amba inuu dhageysto wararka iclaanka caadiga ah way garteen isagaa riday yidhahdeen madaxweyne Trump wuxuu dejiyey istaraatiijiyad thulaathi ah si fiican arrintaa loo eego gartay thulaasiya ahayd wuxuu yidhi Amerika awal anaga Mareykan noqosaya meegana uu saabi ku waafaqeen istaraatiijiyada labaad wuxuu samaystay anaka masaalixda Mareykanka ee bariga dhexmaha ee bariga fog baa noo ah awlawiye oo ah Shiinaha waa inaan Shiina aan mijaa waxaabino oo iska celino dhaqaale ahaan saddex wuxuu yidhi waa inaan soo celino Amerika cadiima mujadadan Amerika inay weynaato mar labaad waa ka istaraatiijiyadii lagu doortay ee dadkana uu ku soo jiidanayay waxaa ka mid ah istaraatiijiyada markaa ma noqonayna maanta kadib booliiska adduunka ma galayna dagaalo aan ku dhintaan ciyaalkayga iyo dhallinyaradaydu Allah riyaaqay markaa nin weyn oo khabiir dhaqaale oo muslina oo masriya oo ku nool wadanka Mareykanka Michigan oo saaxiib nahay waxaan ka doodaynay war ma Trump baa u fiican muslimiinta mise Kamala u fiican mise gabadhii saddexaad baa u fiican baan ka doodaynay wuxuu yidhi Trump baa u fiican waa nin khabiir weyn ah waxaan ku yidhi hadal baan weydiiyey maalinteeda toos ah waxaan waay wuxuu yidhi waa rajulu salaam uu dagmay waa khabiir dhaqaale oo lagala tashado dhaqaalaha Mareykanka waa nin caalim oo wadaad islaam weeyaan ninkaas wuxuu yidhi markaan anigu ku yidhi fikradeedu u sheegay ayaan dhood baan dib u wada hadalnay wuxuu yidhi waad iga joogtay adi marka waxaad fiirinaysay siyaasadda arrimaha dibadda dalkan Mareykanka inaysan isbedelin laakiin campaignka marka uu ku jiro qofka musharaxa wax warba uu sheegay laakiin ka hadalnayna mawduucaas garanay okay xagee martay marka arrintii barigaasi halkee martay waxa weeyaan waxaa bedelay laba shay maxay labada shay bedeshay Epstein wow isbedelka ugu weyn Epstein baa samaysay inta imika soo baxday Epstein
muuqaalada Trump way badan tahay laakiin halis maaha waa la xadiday inta la qariyey baa badan laakiin loo hayo tahdiid in lagu hadido hadday laakiin markaad ii sheegaysa waxaa tiri dagaalka waxaa hogaaminaya Israel kuna khasbaysa Mareykanka qasbis Abistan ay ku xiran tahay miyaa Abistan bay ku xiran tahay shirka Florida la isla joogay muuqaalku waa waxaan kugu sheegay istiraatiijiga hoostuna Abistan baa ku jirta ما قصران يهودو تفعل أو لا تفعل سماء أم به سمين ساسو كليه هدا سمين سيد وببادسها هدا سمين وببادسها ولذلك علميا waxa loo yahay ninka la yiraahdo Trump sidii madaxweynihii hore Biden way nacaan ninka la yiraahdo Netanyahu shakhsi ahaan way nacaan ma jeclo laakiin jacayliya nacab mala siyaasadda waxay leedahay masaalix حقائق waa meesha taala marka arinta isbedelka keentay taas ka mid ah arinta labaad oo isbedelka u keentay Mareykanka wax weeyaan Mareykanka waxa lagu qanciyay loobiga Sahyuuniga ee degan Israa'iil Mareykanka gudihiisa degan waxay ku qanciyeen waa sax danaha Mareykanka shaqeeya ka soo urur bariga dhexe laakiin ogow laba arrimood wali bariga dhexe wuxuu yahay aabaha gaaska gaas badan ma anagu hadan Mareykan leenahay helay Venezuela gacanta ku haynaa America Canada gacanta ku haynaa waxaan haynaa laakiin dhaqaalaha dunida meesha laga jideeyo wali haga gaaska waa bariga dhexe Shiina la meesha ku nool yahay waa bariga dhexe meesha ay ka neefsada Shiinuhu waa Iran iyo Sacuudiga marka arintaasi markaas ka soo ururisid Shiina fasaxday Shiina fasaxdayna wuxuu keenayaa inuu soo dedejiyo inuu ina bedelo arintaasi waxa inooga ah badiil in Israa'iil noqoto dawlad mutafawiqa dawladda bariga dhexe ugu sareysa si ay taasi u dhacdana waa in Iran la tirtiro si Iran loo tirtirana waa inuu Mareykanku dagaalka ka qayb galo haddii Iran la tirtirana horumarkii uu China suubinaya nusqaamaya gartay marka fooda Iran ka dhacaysa marka islaamkii doonaa arintaasi waa arinta kale marka Abistan raacdo taas weeyaan labada arrimoodi waxay keeneen istiraatiijiyan inay maankii Trump bedilaan khutadiisina oo wax ka bedelo plankiisina visionkii Mareykankana ay bedilaan walidaalika saddex qolo way yaabeen oo Mareykan ina akhris fiican ku soo waqti demokraatku oo dad dhinaca istiraatiijiyada bariga dhexe amba dibadda kaga fiican Mareykanka jamhuuriga way yaaban yihiin waxay leeyihiin meeshan ma maxaa waa ciyaarku markay ciyaarayaan maartay badda bacbacay ma aha istiraatiiji tan maxay way yaaban yihiin qolo labaad waxa weeye aqligii jamhuuriyiintu oo yaaban yihiin waxay leeyihiin waa dagaal aan dan ay noogu jirin waxaan galay qolada saddexaad ayaa baro maxay waa khubaradii iskoolka waaqiciyada ee ummada xakaha Kissinger waxay leeyihiin la faa'iidata min hadhihi al-harb dagaalkan wax faa'iida oo ku jira ma jiro Ameerikiyan iyo bariga dhexe midna ugu jirto mustaqbalka Israa'iilna uu soo dhaweynaya da'deeda uu dadajinaya adu badan buu sameeyaa marka tafawuqa sareynta uu sareeyo hubku kama dhigna tafawuq akhlaaqi wa xadaari civilization hayna dadka sareysid iyo moral ahaan etik ahaan dhaqan ahaan ma sareysid laakiin waa laga yaabaa inay teknoloji ahaan sareysid laakiin teknolojiga asaasi markaa sareysid kuma siinayo waxa la yiraahdo الخلود الحضاري waxa loo yaqaan inay waarta xadaaradaada iyo albaxnimadaada wakaas gartay sheekh waxaanu ka dhigaynaa 5 cutub wakaas cutubkaas koobaad halkaas hadaan uga soo baxno cutubka labaad waxaan jeclaan lahaa inaan ku eegno dagaalkan muxuu uga duwan yahay dagaaladii hore sidaas daraadeed su-aasha koobaad oo cutubkan labaad aan kaa weydiinayana ay noqoto istiraatiijiyadda dagaalkan uu leeyahay maxay tahay okay waa su'aal muhiim su'aashaasi okay جزاك الله خير horta dagaalkan wuxuu leeyahay istiraatiijiya murakkaba wax loo yaqaan isasaarsaaranta waa istiraatiijiyad isasaarsaran gartay waxayna looga baahan tahay waxaan u bixinayno istiraatiijiya tafkiikiya inaan furfurno marka istiraatiijiyadda isasaarsaran waxaa loo baahan yahay istiraatiijiyad kale oo lagu furfuro ku soco istiraatiijiyadda isasaaran waxa weeyaan markaan isku keenno hadal qura mid qura hadaan u bixino waxay ka dhigan tahay
تغيير النظام في إيران regime change وإن نظامك معمولات ذلك إيران وإن لبدلوا واستراتيجية مركبة يا دجية وحاد دجية صدح دي قولها الشغلة إسرائيل ويد دجيستي مريكا كنا أودك سنة هي قولها ضل هذا ميدي تفوقنا أودك سنة هي مركا محانا ومركب بس كوة فقسين صدح حدوده بقى إنا تقير لا سمعيه لكن سؤال شو وحويا كيف سيدان النظام كان له بديل كرا وحلو إلا راعوا أهداف استراتيجية وإجرائية حقنا هاي إلا دجيو جوديون استراتيجية oo lasii marayo ijraa'igu waa procedure lasii raacayo processka lagu gaadhayo kan weyn waa in lasii raaco waxay dhahdeen tagyiiru nidaam min adaakhil nidaamka gudahaan ka bedilo waxay soo bandhigaan saddex waa furfureenaa imika waxaa lagu akrinayana waa gudaha yar ee maraykanka laga maamulo kow in dadka la kiciyo oo dadka guduhu markay kacaan ay nidaamka ridaan gargaarna la siiyo waa la soo sameeyay way fashilantay laba waxa waa in la sameeyo bidixda muslimka iiraaniyiinta islaamiyiinta iiraaniyiinta usuuliyiinta ah ee qolada bidixda ah oo ka soo horjeeda Khamenei iyo adeega ha soo jiidano oo uu ka mid yahay madaxweynuhu basaskan uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Araqji oo ka mid yahay maxaa dhacdaa madaxweynihii hore Khatami nooc kuwaasi han ku bedilno oo hal sheekaysano arrin kale ciidanka iyo xaraska isku dirno xaraska ka sareeya ciidanka marka xarasku waa ilaalada tawrada waana ciidanka khaaska yani kuwana waa ciidankii wadanka gartay ciidanka wadanka qaar badan waxay aaminsan yihiin haamish in la yaraysto kuwaas aan ku kicino labadaas maxay noqonayaan waa tagyiir min ad-daakhil waa midda maraykanka uu dajiyeen midda saddexaad waxay dhahdeen tagyiir min ad-daakhil oo laakiin labadaa midna ahayn oo ah dad u bixiyay khudbada ku jirtay madaxweynaha Trump al-wataniyiin dadka wataniyiinta ah su'aasha aad baa loo baaraya man hum al-wataniyuun wuxuu uga jeedaa dadka ha ku bedilo maya intaasoo dhan maaha diraasaadkii waxay keeneen in dowladda Iiraan min ad-daakhil ay xoog badan tahay nidaamku uu xoog weyn yahay waxay sheegayaan diraasaad cilmi oo la sameeyey boqolkiiba 55 shacbiga Iiraan nidaamku la jira number badan waxaa kaloo la sheegayaa dadka nidaamka ula jira saddex qolo weeyaan dad ula jira ideolojiyad ahaan fikrad ahaan dad ula jira masaalix oo ku bararay oo ku xoolaystay dhuuma u furan masaalixdooda ku jira dadkaasi waxa ku soo xidhan 100 milyan yaa ku xidhan wadanka ah oo ay shaqaale siiyaan xabasiyaan waxaa jira dal ragiyada bayع mushtarka tijaarta rag waxaa jira ka shaqeeya mukhadaraadka oo maartay Afghanistan iyo Iran ka dhex adduunka u dhoofiya madhabka shiiciguna uu ogol yahay in arrimaha laga shaqeysan karo wax badan narado income ya ifsaad الشعوب الاخرى in shucuubta kale la baabiyo لمصلحة المسلمين الشيعة في إيران جعفرية ومذهب كم إذا وحيالله كله وحصل لقى شقينا مدة صدحات ومارتي حوق وكان يسوي ويان ضد اسكو جرى الدمج بين الإيديولوجيين والمصلحيين مركا بقول كل شيء كنت كابين متضير مركا ما نظامك مركا لم يريدي كرو لكن مركا إسرائيل waxay soo bandhigtay tafkiiki in lagu rido nidaamka laba dariiq dagaalkaasi waa inuu noqdo sariic suu noqon karaa waa inaan layno madaxda markaan madaxda layno waan gaadhayna hadafkeeni dadka isku dhaxyaacay waa la isku hayayaana oo madaxdii iyaad amarka bixinaa hagee laga bixinaa waa la isku hayayaan wareer baa dhacay arrinta labaad ee muhiimka wax weeyaan ay soo bandhigeen waxay u bixiyeen إيران waxay noo tahay muhaddid wujuudi jiritaankeena halis ku jira anagu inaan barax qabsanaan rabna ma jiritaankeena halis ku jira marka maxaa inaan sameeyna ay tahay waa inaan
iiraan isaalayno si aan u isaalaynana waa inaan dagaal haddii uu noqon karo inuu socdo 2 usbuuc waa inuu sii socdo marka taasina waa tafkiigii marka maxaan leenahay hadafka istaraatiijiga ee dagaalkan laga leeyahay waxa weeyaan in nidaamka iiraan la bedelo si loo bedeli karayba loo bedelo gartay taasi waxay istaraatiijiyadda dagaalkan uu leeyahay maxay tahay balse cutubkan laftirkiisa su-aashiisa labaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo iiraan iyadoo laftirkeedu istaraatiijiyad ma leedahay se maxay tahay istaraatiijiyadeeda waxaan akrinayay saaka masaxalibeed waxaan akrinayay maqaalkaas waxaa qoran istaraatiijiya wuxuu yidhi man yantasir waman yanhazim استراتيجية مقدرة يا أتكان يا أنا بربري يا مارت الدجال هو جوليسن يا اللي هو جوليسن سي استراتيجية وحويري لبضن هدف إسرائيل يمريك إليين نظام كهل بديله هلا سمايو صاحبة عن لنا استراتيجي كاسي لبو إيران هدف كأيلاذ هاي يدوى محي nidaamku inuu ishaysto iyo inaynan jebin oo laga adkaan gartay okay dagaalku kii 12 cisho ahaa istaraatiijiyadii laga lahaa lama gaadhin Soomaaliya laakiin waa la daciifiyay dowladda Iiraan maantana 2 goor in ka badan baa la sii daciifin ama 3 goor laakiin haddii iiraan ay ku guulaysato wayna wadaaye in ay ka baxdo in nidaamka la burburiyo iyadoo waxa u tahay guul inay dagaalka adkaata mahaydo in aanan nidaamkayga la burburin oo iiraan nidaamkaygu sii jiro waxa u tahay iyada markaas guule u tahay marka man yantasirti wuxuu yidhi tantasiru iiraan xiinamaa laa yanhazimu nidaamuha nidaamkeeda haddii uusan burburin way guulaysatay arrinta labaad wuxuu yidhi iiraan way guulaysatay haddii ay israa'iil u diido nolosha waa maxay waa maanta maalintii 3 baa la galayaa ee dadka israa'iil ay ku jiraan hogog wuu qofna dadku waxay sitaan baa lidhi xafaadaat atfaalki iyo sitaan daybaro 3 malyan iyo badh baa dhulka hoos fadhida cajiib saaka emergencyga dowladdii israa'iil waxaa la gashay emergency waxaa la yidhi waxaan ku shiraynaa ya mobeelada sida iskula hadlayeen magaalada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha signal baan ku shiraynaa maxaa ka baqeen waxaa dhacday magaalo la dhahdo xaafad la dhahdo beit shumays oo ku taala qudus iyaa lasoo tuuray madfac amba saaruukh dhulka hoostiisa taga gartay wuxuu ugu tagay dadkii malji'ii hoose ku jireen aye 9 qof baa dhimatay 12 qof baa dhaawac soo ma garan marka malji hoos ahaa ee godadka la galay xataa lagu badbaadi lahaa marka dowladana meel ay ku shiraysay lama iclaamin Israa'iil waa la garaacay marka istaraatiijiyadii marka waxay keentay in la raado ma shiri karnaba ismaani karo wala tajidanhum ahras an-nas ala hayat okay maxaa dhacay marka dowladda Iiraan marka waxay ku guuleysatay sida uu yiri Araqji wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri way dhamaatay waxaan nii diideena hurdo mana san doontaan mana aamusi doono safaraatul indaarka alarmka qaylnaya digniinta sheegaya warning ma aamusayo walidaalika xalay iyo habeen hore wuxuu garaacmay 9 jeer hurdo waa tagtay Tel Aviv dhexdeeda marka waxay ka dhigan tahay waan baabi'inay maxaa la yidhaahdaa sawaariikhdii Iiraan iyo sawaariikhdan soo socota oo alarmka la qaylinayo oo waliba istaraatiijiyadda Iiraan way bedeshay ma wada isticmaalayso hubkii oo dhan walidaalika saaka waxaa kacay
باشي دياردي ويريد مريكا بي 2 بي 2 oo ka kacday xaggan Mareykan ka kacday Missouri 12 saacadood buu sii socotay ilaa iyo Iran waxay soo garaacaysay meelaha hubka laga soo aanyo oo Israa'iil ay gaali weydeen hubka ay ku jiraan bay Israa'iil gaali weydeen intay soo baxaan garaacan way ku noqdeen hubka qaar waxay sheegaan 500 600 mitir bay ku hooseysaa meeshii fadhiyaan fog yahay marka Israa'iil ma haysato hubka ku gaadho marka ninkii istaraatiijiga ahaad akhrisay wuxuu leeyahay haddii ay nolol u diido Israa'iiliyiinta guusha لأن إسرائيل ما تحمل كرتو خسارة أنت هلاك ما تحمل كرتو مريكا waxay taagan dad fara badan America أولا first America waxay taagan yihiin lacagtu maxay Israa'iil ku socotaa inta laag yes bas iyadoo ma xambaari karayso ama artay inta ay ka badan waliba doorashooyinkii midtermka soo dhow wayna istaagtay maxaan ku dhahdaa diyaaradihii wax ka baxay wax soo kale ma jiro aylaad bay ka bixi jirtay oo u dhaxaysa Urdun iyadoo wadada ku socda badi ما حيفو بدي ku socdaa marka way xiran tahay dawladda Israa'iil marka dawladda Israa'iil waa mutafawiq xagga hawada way garaacaysaa way leenaysaa madax badan sa sheegi doono laakiinse yaa guuleysanay marka waxaa la eegi doonaa Mareykanka iyo Israa'iil waxay guuleysanayaan labada hadaf fiilay markii gaadhaan oo ah in nidaamka la bedelo amba in nidaamka laga soo dhex saaro dad iyagu ay leeyihiin sidii maaragtay Venezuela gartay Israa'iil oo Iran waxay guuleysanaysaa markuu nidaamku dhici waayo alla baro Soomaa amba se markay Israa'iil nasaweydo ay Israa'iil tiraahdo dagaalka la joojiyo sidii caadigeeyay sidaad socota Iran ay ka tiraahdo Mareykan hala bilaabo shakadii dagaalka la joojiyo gartay Sheekh Cabdiraxmaan mahadsanid waxaan u galeynaa cutubka saddexaad oo aan ku eegi doono horta hogaamiyaha Iran ee hadda la dilay Ali Khamenei iyo cawaaqibta ka dhalan karta dilkiisa su'aasha koowaad oo rabo inaan ku weydiiyana waxay noqon doontaa waa ayo horta Ali Khamenei maxaa isaga loo beegsaday markii hadda dagaalka la bilaabay okay su'aal fiican way su'aashaasi horta Ali Khamenei waa hogaanka sare ee dawladda Iran buu ahaa Ali Khamenei markaad u fiirsatid historigiisu waa cajiib ما هو عادي شخص عادي هين علي الخميني بيعيس روته واحد علي بن جراد الحسيني وهو شاكتا انه قليا ابترسينتي البيتك الحسيني الخميني دارت كوفيد المدو الشيعة يكوفيد مع مد مدو يعني ما تعدي دوبك معنا دوبك مدو ودوبك البيتك يكدغتا ارتودن قعدنا وشيخ باطاي مدوغ marka qof walba ma xiran karo qof geeriyeysan ba xidhaya albeedki dadku geeriyeysan ba xidhaya waa albeedkeedii ya sheegaya gartay okay ninkaasi wuxuu dhashay waqti nin weyn buu ahaa 90kii buu ku dhawaaday 86 sano hadda ku dhintay wuxuu 19 abriil buu dhashay 1939 ninkaasi tacliinta wuxuu soo sameeyay tacliinta diiniga madrasada badan buu ka soo sameeyay nin mutacallim oo ahaa dhinaca islaamka shiicada fiqiga shiicada fiqi Jaafar wuxuu ku abtirsaday waxyaalo cajiib aan ka sheegay dadku ay hore u maqal waxaa la xaraka islaamiya dhaqdhaqaaqa islaamka lixdanooyinkii dhaqdhaqaaqa islaamka lixdanooyinkii shiicada iyo sunnuhu way isla akhrin jireen maxaa ka wadaa waxa ay soo saaraan culimada sunnuhu ay shiicadu akhrin jirtay waqtiga gartay مثلا سو هو ترجمي كتابك المستقبل لهذا الدين او قري سيد قطب ونكو تاثري ونترجمي ardaydu noo dhigi jiray عجيب wuxuu kaloo turjumay kitaabka al-Islam wa mushkilaat al-hadara al-gharbiya oo sida qodb qoreen wuxuu aad u jeclaa Jabal Abdul Nasir wuxuu arki jiray inuu yahay hogaamiye ummadeed wuxuuna aad u jeclaa sida qodb uu arki jiray mufakkir weyn oo islaamiya labadii nin baa isku dhacday
wayna isdileen Sayyid Qutb waxa dilay Cabdinaasir waxa ay taasi ku dhalisay su'aal inuu isweydiiyo oo yiraahdo hoggaankaagii siyaasadeed wuxuu dilay hoggaankaagii fikradeed ayuhuma al haqq iyo xaqa ku taagan dadku akhristaasi dadkeenu ma ogeyn ma oga kardaa markaa buu noqday islaami markuu islaami noqday markaasuu la saaxiibay Khomeini markaasuu qaatay tawajuha la yidhaahdo التوجه الإسلامي الشيعي إنه اسبدل شيعته أي سميها الحركة الإسلامية الشيعية على شريعة هنيك الأورنجري ومفكرها إيرانية ويسقون سيد قطب قطع سنة أيوة أخرنجري بوغانتيس مركا نيكاني وحو قالي حبسيغا يسقون اللي شيتو بجراء شاهي بحر لأنه كجرى الحركة دي كان هذا لو وضع أبيس اسبدل كيسي يو قالي خميني بو آد وجعل هذا فكرته الله وضعي كون سقال بقول تضباطا سقالكي وحكو بيري ضدكي أساسي جمهورية يمكن الله يقانا الجمهورية الإسلامية إيران مركا الدولة دي نمي كجرسا مؤسس بكيه سواء قرأت معه وحويان markii sagaardoodkii markay dhacday laakiin mucaaradku ku biiray oo ku kacay tii hore oo laftigiisa wuxuu soo galay Soomaha tana u keentay inuu soo dhawaado Khomeini laana Khomeini mucaarad buu ahaa oo wuxuu deganaa Paris wuxuu dadka gudaha ugu jira labadooda marka boqorkay ku ahaayeen shaahibay waxay ku ahaayeen shacbigii kacsanay tawradda sameeyay iyo hogaaminayay sax okay tawraddii Iiraan markaa dhalatay ragii hogaaminayay ku jireen kana dibadda ku hogaaminayay kana guduhu ku hogaaminayay اوكي سوتاس لما قرن اريتاس waxay keentay 9 markii tawradii dhalatay waxa la doortay madax tawradu marka waxa la dhadaa thawratu taakulu abnaaha marka ugu horeysa tawradu way socontaa waxa soo baxday ajnihatu thawra dhinacyada garbaha tawrada soo baxda garbihii badnaaba markaasi la iska takhalusay odaygii Khomeini 1980 iyo kowdii wuxuu ka dhigay madaxweyne والله رشحي مدحون نقد على Khomeini ما شاء الله إلا كون سجال بقول سديت يا سجال كلا بجار وحو كسبضي مركها قلبي Khomeini وحاجر نلعب آية الله منتظري أو كل جل آية الله Khomeini أو لجو وضعي إنه نقضه نيك Khomeini بديلية لكن نيك أسوحها نين آد ودبع سرو في عن أو ضدك إنه سكوا وضع ربع تلعب اللي قلتها معي markuu dhiman doono 3 bilood ka hor Khomeini waraqad buu qoray wuxuu yiri waxaan ka baqayaa inaad wadanka gacanta u galisid liberaaliyiinta iyo munaafiqiinta sidaa daraadeed waa ku casilay isagoo qofkii la dooran lahaa isaga dabadii aan dooran Khomeini yuu dhintay waxaa la galay shir maalin dhan socday oo adduunka la iska qariyay iyo bedilay ayatollah Khomeini gartay ya gartay ayatollah Khomeini waxa bedeli kara qof kale ilaa iyo 4 sifo yaardi 4 sifo كاريزمي آية الله ولها علمي ولا يقعد درجة الاجتهاد في الفقه جعفري والله وصمها تقوى أفلا سيكون أمسي تقوى لو تهمة على كعبسي أفراد وطنبين حكمة ونقص صاري كرب بضحنا نكون جونا ضياك علاقة بك صباحا وحي قال يعني مك إن نبض هلان مرخا إياه نقص صاري كرب عشاس نكلا على الرفسنجاني ومدحوينه soo noqday oo khubarada dawladda ku jiray iyo isagoo meesha la fadhiyo wuxuu war ninka qore inaga saari karay waa Ali Khamenei ajiib lama fiirin Ali Khamenei noqdo laana cilmiyan waa laga wada horreeyay ha lugtama cilmiyan laga khasreeyo laga sirreeyay sax marka Ali Khamenei ayaa markaa noqday 89kii maalintii uu dhintay odaygii Khomeini ilaa iyo maanta isaga guudkii ahaa muxuu noqday al-murshid al-a'la lil-hukuma marka odaygani waxay leeyihiin culimadu wuxuu leeyahay dhowr sifo yuu leeyahay marka koobaad waxaa la dhahdaa wuxuu u dhaxeeyaa midigta iyo bidix yani labada daraf islaaxiyiinta
iyo mutashadidiinta u dhaxeeya wasat marka laakiin wuxuu yaraxigaa mutashadidiinta وجعل لي حوجا مدة كواد وليه مدة اللي بعد وليه وشخصية كاريزمية شخصي هجامية يعني مدة صدحات وليه واحد وشخصي أن قسلين مركة وأركض ضنتو إني هبل كجرت إلا كتخلصه ودريا ما كما عياره كارت صورت له حور مسيال 100% ولذلك بيو أركان ملايكة كإنه يهي نين خطرة وإلا الزولية يتواجب لماذا؟ لأنه قف كستي أو لدورته لا درو ولا شيء كيسي كان رجال بيتك مركب ميل اللي قاعد يقول وحنكون نقول يا ودتك هذا مرة فكرة يوم مركب واحد يسوي ونيك الله ما يخسر علنيه أودي شو تلك تاي أودنا الدستور كسي خطرت هذا وحي وقاعدين وسجيه أسجنا وحوا حميدا كله لحنين طريقي نعيبك مريكا إسرائيلي مريكا كاس مركب نيكاس ونيكاس شخصيتي يعني قطي فهني شيخ شكرا سيفي عن بعض وقاضي دكتي حدانا waxaa kala laakiin dadka qalbigooda ku soo dhici kara kadib dilkiisa markii la dilay kadib hadafkii la lahaa ma la gaaray hadafkii laga lahaa in la dilo in la dilo horta markii la dilay ajiib weeyaan waxa dilku soo yimid taqaana dilkan waxa sabab u ahaa saddex arrimood oo waaweyn oo dhinaca khala mid waxa weeyaan waa khata istiraatiiji oo Iran ay ku dhacday midna waxa weeyaan waa bayc ilwahm waxa laga iibiyay imagination been baa laga iibshay sidii barkii hore ka tirana markaa leeyahay barkan dagaalkii hore markaan ka hadalay saasaan uga hadalay xasuusta midda saddexaadna waxa weeyaan waa doorka ay ciyaartay dawladda Cumaan ma wuxuu ahaa door istikhbaaraati mise door wuxuu ahaa wada heshiisiina صدق هذا مهم جدا خطأ يكون على إيران خطأ إيران يكون على يده استراتيجي وين حيكون عليه وحويان وحيكون عليه إن أي آمنتي إن مفاوضاتكو أي صعد ما قرر مفاوضات بس صعد بك الليني مفاوضات كيبا ماشي يوقف في عناد بمري سوق مري لا بقى ريموت باجرتي وين لو في رصد نيك وزيرك أريمها الدبادة مان بوقاشا كو تغي مريكا وحول إيران وحي كتناسو شيء كل شيء حتى تخصيب كيو جوجسي زيرو بكريها وحي أنا أقولاتي إن وطن دا حدا لقيه وحال الشيء إن عمان لقيه خلاص دي وارد ما تبا وركابو جي وركابان جيني يا بركاب وحي أفهمين إنه وركا جوابتي ستة لسوقيو إنه ضيال دعين ولذلك أقل كيسي بيت المرشد بوشنو كدعين دولة مريكانku waxay Israa'iil u sheegtay in ka saacadaha murshidkii iyo dhamaan dawladii oo dhan gurigooda joogaan laakiin wuxuu ku guuleystay in murshidku inuu maqnaysiyo Ali Rajani yaragu ugu talagalay dawladda qaban doonaan maqnaadu kii ha imaanin yidin marka rasaastu ugu horeysa waxa ku dhacday aqalka zam marka taasi waa khata istiraatiijiga ay galeen dadka qaar baa leh ugu talagalay wadaadku wuxuu ku tukaday boqolaal hogaamiyaal mar rab inuu dad ku sii tukado hadeeto wixii uu qoray hogaanimadii uu sameeyay laakiin wuxuu ugu talagalay inuu iska dhinto waa sax weeyaan waa dhici kartaa laakiin muxuu isku raacinayaa ragga hogaamiyaasha kale waaweyn hadduu ugu talagalay marka taasi waa bidda khata gashay dowladda maaragtay Iran istiraatiijiga waxa weeyaan waa la waalay bay'ul wahmi baa dhacay waxa laga iibshay wahmi waa laga waalay waxaana la sameeyay waa siyaasadda aynu wasiirka arrimaha dibadda u yimaado Cumaan oo u arkaan xarakada inay tahay wali xaraka inay wax socdaan wali oo munaasabada inay sii nooshahay ay u arkaan arrinta kale ee muhiimka ana waxa weeyaan in ay dawladda Mareykanka ay ilaahdaan meel fiican buu hadalkii socdaa hadduu hadalkaasi dhammaan waayo hubka ay faraha ka qaadi weydana wax weyn baa dhici doona waa inuu ka faraha ka qaado absiintii way ogolaatay marka taasaa keentay inay maaragtay ninkaa la laakiin maada bacdu waxa weeyaan dowladda Iiraan waa dowlad fikri ah fikirka dowladda lagu wadana iyo hogaamiyaasha fikirka haystana waa kumaankum ilaa shicibku waa 9 milyan ilaa 100 milyan 100 milyan
hadday boqolkiiba 5 ay la jiraan fikirka oo fikirku uu sameeyo intaas oo milyan oo qof oo la sameeyey jaamicado fikirka lagu sameeyo imise qof baa fikirka xambaarsan oo hogaamiyaala tira male hogaamiye la dilay daraaddeed jirida laguma siibin dhulka waxaa kusii harayo fikirkii oo la faafiyey fikir la faafiyey gartay walidaalika halkan waxaan ku hayaa wax cajiib mogtahay markii la yidhi eg markii la yidhi waa la dilay wadaadkii way aamuseen maxay sameynayeen Trump wuxuu sheegay 4 saacadood kadib buu shaaca ka qaaday in la dilay waxayna sawireen meedkiisa la qaadayo santiladka arkayeen Israa'iilna way sheegtay nitiinaha horreeyay kadibna Trump baa sheegay iclaamka oo dhan uu ka sheekeynay reer galbeedku soo dhahay in la dilay laakiin dowladda Iran waxay tiri yatamattacu bi sihhati jayyida wadaadku nool yahay caafimaadkiisuna waa heer sare okay dadkii waxa la gashay marxaladu shak dad ba aaminsan Trump inuu de inta badan ru sheegin de nitiinaha oo ka sii daray lama qaadan waxay mareen 3 marxaladood oo la yiraahdo al-marahil al-thalatha لاستراتيجية الرد جوابت سلو بحيو وإن لما مرة 3 جرنجرو أو استراتيجية 3 جرنجرو معين تكواد وحالة هذا استيعاب الصدمة شوق دعي ارجع دعي وإن إنه امتصاص وإن ضدكم أي لقان نظامكم إنه اللقاء هذا وربوداتك بيجروا والد لي لذلك حرقت جمهوري حرقتم قلوبنا فنحرق قلوبكم قلبي يجب قولوا لي سين وقبتين قلوبتين وقبينا وشخص وين خابين بس شيء دول شخص وين ومحوية إيران حاكل عبرها سدمدي بالله تكوبد أوكي المرحلة الثانية على قال مرحلة الصمود إن لجبين مرحلة استراتيجية وحنا ذات هره حنا ذات صدمة وين لا أقبله إنه مقيه وذاكي أفرتن اللي مقيه ما هو ذاكيون أفرتن بلا مقن يلا مقن نصيبه إلا النوجو مرك وإلا النوجو يعني حاجة حاجة مرحلة الصمود وأباهن صبري استراتيجي وحده إلا الصبر سي استراتيجية صبر استراتيجي النظام كفارسي كوجرا بقى يا نظام كشيناه دولة سوق جوبي ويليه أوكي محاكو حاجة مركا الرد إلا جوابه لكن ردكي محو نقنيا صدح بو نقنيا تطبق ليا بسلاسيات كي موت ايه صدح بو نقنيا إن إيران إسرائيل أي قرعضو سي متدرجة هو بيرو خفيفة كو يرو دحا كو كرسي الريا كو واوين لا يمكن الاستعمالي وإنا ساو سعوتهم لبو وإن هريريحنا لقراعو meelaha ciidanka Mareykanka ay fadhiyaan kuwii qatar Bahrain imaaraadka Sacuudiga hatta Cumaan baa la garaacay shalay Cumaan may garaaci jirin laakiin xal way garaacday waxba u soo baxay marka in la garaaco wala kala shakiya istiraatiijiyada waa talabaad arinta saddexda maxay in la xiro matiiqa Hormuz una qabatayntii la bilaabo si dhaqaalaha dunidu halis u galo ولذلك مركب روح البحر كريسو ويحري كرتا ويجوجيسه ويديدن مركب كي حالي وكا مركب وين غاز كسيده اوليين اقرا سماها وجرنجروين كلا مر استراتيجيه ده مركا ايران waxay samaysay 3 marxaladood marxaladii nuuga sumuudkii iyo jawaabtii oo wali hada socota jawaabtii jawaabtu maxay noqotay markaas marka jawaabtii waa tan aan bariga dhaxano dagaal bay ka bilowday khaliijkii hormisna way xidhay Israa'iil waxay ku haysaa in weerarada ku hayso weeraradaas oo kala go'ayn oo imika waxay sheegeen in bilaamayso tii ugu adkeed wax ayna wali arag ba ku dhici doonta Israa'iil tiri Iran Mareykankuna wuxuu yiri Trump sidaan moodayna hubkii aan filayna ma isticmaalin wali way ka hoosaysaa intii لكن هذا استعمال شوحة عن كعب سرنا وحنو جوابنا جواب أيضا ولد كفكري
hanjabaadu markaa ka cusubtaa meel sare السبوتي wakaas gartay sheekh sidoo kale waxaa jira liis musharaxiin ah oo liiskaas musharaxiinta ah la soo saaray ama murashaxiin ah si ay u bedelaan khamaniga hadda tegey waa kuwa maalan lasoo rashaxay hadda miiska lasoo saaray okay ma ka ogaan karnaa horta waxaa la sameeyey laba jaranjaro jaranjarada koowaad waxa weeyaan imika almarxala alintiqaaliya marxaladda kale guurka waddanka ayaa xakumaya dastuurka lagu noqday dastuurka maadadiisa 111 wuxuu sheegayaa in la sameeyo 3 nin inay waddanka xukumaan madaxweynaha baarlamaanka madaxweynaha maxkamadda ra'iisul qadaa iyo nin kamida fuqahada waaweyn ee ku jirta majlisu siyaasada dastuur saddexdaa nin waxay imika yihiin postigii waxay galayaan meeshii odayga ilaa mid kale la helayo ilaa mid kale la helayo gartay waxa weeyaan saddexdan nin imika matalan ninka la dhahdo Mas'uud Basashkan oo madaxweynuhu waa nin dhakhtara waa nin mufakira waa nin siyaasiya laakiin waa bidix waa islaaxi weli waa islaaxi weyn aad buu ugu horjeedaa qolada midigta saddex fikradood buu rumaysan yahay fikradda la dhahdo alhuduu fi daakhil walhuduu fi lmuxiit walhuduu fi lkhaarij gudaha in hadda la dejiyo muxiidka inagu meersanee bariga dhexe jasiirta muslimiinta sunnahana la heshiiyo caalamka inaan iska dejino inaan dhaafno marxalatu tawatur saabuna ku soo galay waxa uuna rumaysan yahay Trump inaan isaga la heshin karo waa garatay maaha macquul buu arkaa waana nin dhakhtara ninkaasi ninka kale waa ninka la dhahdo Qulaam Xuseen waa ninka xukuma maxkamadda ninkaasina waa ninkan waddanka iminka xakumay weeyaan isaguna waa nin weyn oo iskoolada weyn ka soo baxay madaariska diiniga ka soo baxay ugu dambeyn waxaa weeyaan ninka Cali Rida Acrafji waxa weeyaan waa nin wadaada oo caalim ah oo mujtahid ah oo shiici oo kabiira waana ninka ku jira ragga inay bedilaan laga yaabo odayga marka marxaladda koobaad saddexdan nin baa xukumaysa waddanka agar la samaha saana maxaa sheegtaan maadada 111 ee dastuurka dalka Iran gartay laakiin waa in la doorto 40 cisho geeriya la galay markii odaadka la dilay waxa la ilaamiyay 40 cisho oo geeri waxa loo yaqaan al-arba'iniya bay leeyihiin shiicadu waxaana la sameeyay 7 cisho oo shaqada waddanka oo laga fadhiyo dagaal waa ku socday laakiin way ku dareen markii la ilaaniyay wadaadka in la dilay waxa soo baxay dad lagu qadaray 2 milyan oo qof banaanbaxay dad ku socdo Shiraz Qum meel kasta iyo Tahraan way soo baxeen dadku banaanbaxayeen way ducaynayeen way ooyeen geeri waxa ku dhacday waa fajaa okay laakiin magacada la filayo inay isaga bedilaan way badan yihiin waxayna u kala baxaan islaaxiyiin rag maartay wadaadada islaaxiyiinta loo yaqaano reform political reformiga iyo kuwa mutashaddidiinta ku inuu yaqaan laakiin da usuuliyana labadaba ay leeyihiin afar weyn baa la filaya waxa la filaya ninka dhacdo Mujtaba Khamenei waa inankii Ayatollah Khamenei kan mika dhintay waa inankiisa labaad kan hadda dhintay Khomeinigii hore ma waa Khameneiga mika dhintay Mujtaba dhacdo gartay waa caalim weyn oo isaguna fuqahada ku jira Ali Rida Acrafji waa kan ku jira qoladan isagu wuxuu matalayaa mu'asasada diiniga loo yaqaan al-haadi'a dagan laakiin waa nin culus oo dadkuna aad u jecel yihiin waxaa jira Maxamed al-Mahdi nin dhahdo isaguna wuxuu matalaa jiraac mutashaddidka ah waxaa kaloo ku jira Xasan al-Khumeini inuu awoow ahaa Ayatollah Khumeini marka intaas waa inta la filay imka ina kaleeto waxaa jira Ali Rajani soo kuma jiro Ali Rajani ma aha wadaad ma noqon kara guud laakiin madaxweynuhu odayga Khamenei wuxuu kaga sii tagay inuu waddanka sii wado imika isaga waddanka wada saddex nin ninka ay daba socdaan ee istaraatiijiyadka dejinaya waa ninkaas waa la rajaynayaa gartay